بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا نبينا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقيبتي لبعض كصاب سنة السياسة عالمية يقول قرطنك لجلا يو عدة هشيس لجلسو. قيبتي وروح إنك هذا الله يني دولة وحطتك عنتك وهايسا السياسة هسي وأن له قدبين maxaan ku idhaha shirkado khaasa iyo ganacsato taasoo keeni karta in dadka danyarta ah la halmaamo. Gorgortan marka aad gelayso waxa ugu weyn ee lagaa doonayaa waxa weeye inaanad ku mashquulin waxa adigu aad ka helayso oo keliya. Waa inaad eegtaa waxa qofka kale uu ka helayo ee gruubka kale danta ay leeyihiin iyo faa'iidada ay doonayaan iyo waxay rabaan aad deristo ood culays saarto oo aad tusto mar walba waxa adigu aad bixinaysaa inuu ka weyn yahay waxay doonayaan. Waxaynu ognahay inaan adduunkan maanta cidina wax isa siinin weliba la isku dulmiyo heshiisyada oo maxaan ku idhahdaa khayraadkaaga ilaahay ku siiyey iyo istaraatiijiyada dabeeciga ah meesha aad ku taalo ayaa kuu keentay damaca dadkan ku imanaya. Maaha dad maxaan ku idhahaa sadaqad ku siinaya maaha, dad kuu naxaya maaha. Marka adiguna waa inaad garataa waxa ay helayaan inaad deristo oo markaa gorgortanka gelaysaan mar walba aad tilmaanto waxay kaa helayaan inuu ka badan yahay waxa adigu aad helayso oo aadan ku qancin waxa marba ay kuu sheegaan ee waxaasaad helaysa. diidmadu waxa weeye shayga ugu muhiimsan iyo shayga ugu muhiimsan ee ugu qiimo badan weeye gorgorta. Inaad diidi karto wax, inaad garan karto wax khatar kastoo ka iman karta waxa heshiiska aad gelaysaa intuu leegyahay. waxaa jira buugga qoray madaxweyne Trump oo negotiationka ama gorgorsiga ku saabsan uu kaga hadlayo markay deriso waxaad arkaysaa dabeecadihiisa isagoo maanta madaxweynaha inuu u dhaqmaayo sidii nin deal maker oo gorgortan ku jira. dadkuna ay odhanayaan war madaxweynuhu maaragtay oo kan tanaasi marba ka noqonaya wixii go-aan uu gaadhay. isaguse wuxuu u arkaa nin gorgortan ku jiro markaa meel fog buu istaagaya uu qabsanayaa marka lagu gartuu soo degaya waxaa laga yaabaa tii uu doonayaba inay tu ka wanaagsan u helo. gorgortu waa sidaa waxa weeye inaanad ku mashquulin wax adiga lagu sheegayo lagu leeyahay waxaasaanu ku siin doonaa ee aad ku mashquulsho waxaad bixinaysaa qiimuhu leeyahay, khatartuu leeyahay, dhibta kaaga iman karta. marka mararka qaarkood waxa muhiim ah markaad heshiisyo caalamiga gelayso inaad abuurto mucaaradada abuuraysa maaha dad qayliya oo maaragtay dhagax tuura iyo suuqa iyo buuq iyo mudaharado maaha. waxa weeye aqoon-yahano aad u sheegto oo ka hadla qodobada xasaasiga ah ee gorgortanka ku jira oo ka diga khataraha ka iman kara. taasi waxay keenaysaa inaad adigu tiraahdo waxaasaa khatara ayaa igu socda, waxaasay dadka igu diidan yihiin, maxaan ka iibiyayaan ku bedelaayan ku qanciya. marka waxa weeye maxaan ku idhaha gorgortanka caynkaasi iyo hadallada noocaasi iyo doodaha noocaasi waa doodo wax ku taraya. waa inay marka ay jirtaa oo kale oo muhiima in horaan u sheegayo waan ku yara celinayaa oo si kalaan u dhigayaa. marka leena dowladdu gacanta ku hayso laba example baan imanka inuu soo qabanaya. dalalkii Afrika waddanka Nigeria la yidhaha iyo waddanka Congo la yidhaha mid waliba macdan iyo batrool iyo khayraad buu ilaahay siiyey, laakiin wuxuu dadkii waa ka qatan yihiin sababtoo ah shirkaday gacanta u geliyeen iyo ganacsato dhowrin dad malaayiin tujaaro bay leeyihiin, milyaneero tujaariya bilyaneeray leeyihiin, laakiin dadkoodu faqri bay ku nool yihiin. taa bal waxaad ag dhigtaa wadamada khaliijka, sacuudi arabiya iyo wadamadan imaaraadka iyo gadar iyo kuwait iyo dowladda gacanta ku haysaa khayraadkooda oo dhan, ama badro ha noqdo ama macdan ha noqdo ama shirkadaha waaweyn ha noqdo, diyaarada ha noqdo, maxaan ku idhaha telefoon ha noqdo, booso ha noqdo, bahan ha noqdo, waxa dowladda leh iyo masaanicda waaweynba ee petrochemicalka ah. waana taa dadkii oo dhan khayraadkii gaadhay ee dadkoodu mabsuud ku yahay ay ka dheragsan yihiin. marka taana waxa weeye inaanay gacan
khaasa u gelin khayraadka dalku gacanta ku hayso dowladdu gorgortanka waxaa soo raaca arrinta militariga saldhig military ama saldhig degadeed marka ugu horeysa horta waa inuu jiraa heshiis laba point baan ka sheegayaa oo muhiima point waxa weeye lacagta lagu siinayo kirada ah eed ku kiraynaysaa waa inay ahaataa lacag la socota inflationka oo qiimo dhaca lacagta markay qiimo dhacdo qiimo ma samaynayso haddii aad muun tiraahdo maanta lacagta sanadkii ay siinaysaan oo intaas ayaa 10 sano kabacdina ay siinaysaa waa in 3 sanoba ugu badnaan ay la amadgareyn karaa kirada laga helayo dhulkaasi oo la socdaa qiimo dhaca lacagta inflationka waa inuu ku rakibnaadaa taas waxa weeye qiimaha dhulka inaanad yaraysan talabaad waxa weeye saldhig military haddii saldhig military aad bixinayso waa inuu ahaadaa qodob muhiima aad ku dartaa oo muhiima oo ka hadlaya sovereignty-gaaga iyo qarannimadaada ay ku xidhan tahay iyo nabadgelyadaada waa in qodobkaasi ahaada qodob odhanaya lagagama duuli karo dalkayga dal kale ilaa anigu aanan golaasho bixiyo waa qodobka ay isticmaalayaan wadamadan khaliijka qatar iyo sacuudiga iyo imaaraadku ay dhammaan yidhaahdeen maraykanka iyagoo saldhigay maraykanku fadhiyo kagama duuli kartid iiraan imanka qodobkaasay isticmaalaan qodobkaasi haddaanu jirin waxba lama weydiiyeen marka waxaynu u baahannahay arrimahaas oo dhan oo muhiima in la galo qodob kale oo muhiima waxaan leeyahay madaxweynuhu ku mahadsan yahay inuu dad badan la tashaday laakiin madaxweyne gurub tashi ma bixiyo Soomaali weliba dhaqankeeda ma bixiyaan gurub wada socdaa tashi waxaad jeceshahay un bay kuu sheegaan dadka aanad ka maarmayn qof ula tasho dadkana waxaan leeyahay waa ra'yo nadiif oo wanaagsan bixiya cadowgu waa badan yahay hadaladiinana maaragtay biisaama wixii talada sheegaan aynu magaranaysa wada jirka iyo midnimada iyo nabadgelyadana hala ilaaliyo meel fiican baynu maraynaa ilaahay hayna gargaaro guushana hayna siiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu